suuqa Xayaat Market oo la jaan qaadaya hanaanka casriga ee suuqyada caalamka ayaa iminka halkan waxaa lagu diyaarinayaa adeeg dheeraad ah marka la eego qaybtan gaarka ah ee loo diyaarinayo maacuunta iyo qayb kale oo suuqa kamid oo loo diyaarinayo qudaarta iyadoo ay foodan lagu soo heeso bisha barakeysan ee Ramadaan macaamiisha Xayaat Marketna waxay yihiin kuwa iminka soo gaaraya suuqa si ay u dugaamistaan howlwadeenada Xayaat Market ayaa hadda waxay ku hoolan yihiin qancinta macaamiisha suuqa soo gaaraysa iyadoo dadku iminka ay dukaameysigooda diiradda saarayaan qaybaha la xiriira maacuunta iyo qaybta kale qudaarta oo ay diyaar garowga Ramadaanka oo ay toddobaadyo kooban naga xigaan iminka aad loo dareemayo waxaana marka la eego qancinta iyo soo dhaweynta uu suuqa ku hoolan yahay macaamiishiisa kala duwan dhinaca kale barbar socda qiimo dhimis loo diyaariyay dadweynaha Soomaaliyeed marka la eego bisha barakeysan ee Ramadaan oo iminka loogu talagalay in qiimo jaban ay ku dukaamistaan qaybta maacuunta iyo qaybta qudaarta iyagoo u diyaar garoobaya bisha fadliga iyo khayrka badan ee Ramadaan noocyada maacuunta ee aan looga maarmin diyaarinta afurka iyo saxuurta ayaa lagu diyaariyay suuqa Xayaat Market makiinadaha cabitaanada lagu shiido iyo qalabka qaboojiyaha iyo kuwa diirimaadka sameeya ayaa kamid ah waxyaabaha macaamiisha halkan loogu diyaariyay isla markaana waxaa suuqa ka muuqanaya dukaameysi ballaaran oo ay dadku qaybaha kala duwan ee suuqa ay ka sameynayaan iibsashada adeegga ay u baahan yihiin halkan waxay kamid tahay qaybaha kale ee suuqa Xayaat Market waa qaybta qudaarta raashinka iyo hilibka loo diyaariyay waxaana markaad eegto halkan ka soconaya dukaameysi aad u ballaaran oo dadweynaha Soomaaliyeed halkan ay soo gaarayaan si maalinle ah isla markaana dadku ay ku sheegayaan in si toos ay u adeegtaan suuqa waxyaabaha dadku ay ku tilmaamayaan waxaa kamid ah in Xayaat Market uu keenay oo hal meel qura uu ku keenay hadba adeeg kasto oo guriga looga baahan yahay waxaanay sheegeen in arrintaasi ay u doorbidayaan in maalin kasta ay soo gaaraan suuqa oo ay ka dukaamistaan waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee maanta halkan u yimid inay ka dukaamistaan waxaanay sheegeen marka la eego qiimaha tayada iyo waliba adeegga suuqa ay ugu baahan yihiin inay ku qanacsan yihiin qaar ka mid ah dadkii aynu la hadalnay waxaa ku jiray dad dalka dibadiisa ka yimid oo sheegay in ay la yaabeen markii arkeen adeegga suuqa lagu diyaariyay iyo hanaanka uu dhisan yahay waxaanay tilmaameen in hanaan casri ah uu qaatay Xayaat Market oo iminka ku duwaysa inuu la jaan qaado suuqyada caalamka magacayga waa Naasir Ismaa Xaaji aad ugu mahadsantihiin soo dhaweyntiina Xayaat Moolan joognaa Xayaat Moolan ka dukaameysanayna discount fiican inoo sameeyeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka iyo in aan macnaha magaalada Muqdisho anagoo joogno wax walba ka helno marka hore waxa laga yaabaa in 10 meel adeegga ka kala doonatid adoo soo baxay magaalada aad dhahdid shay hebel halkaas aan ka rabaa shay hebel kalena meesha ka soo gadana transportation iyo waqti tiro badan uu kaaga dhumo laakiin hadda alxamdulillah all in one way hal meel waxa oo dhan ku helaysaa waa in aad loogu farxo waxa la dhahaa Sumeeyo Daahir Cabdi ma sha Allah supermarket Xayaat afaar badan keeneen oo ka filaneen in Soomaaliya ka helaayo adeeg wax badan aan ku arkay oo isdheheenin halkaan aan ku arkay Soomaaliya ina yani ma filanin inaan ku arkayo ma sha Allah wallahi waa ku arkay wax badan oo xataa laga heleen suuqyasha caadiga halkaan ku soo koobiyeen way ku keeneen waa imaada markasta jumcada kasta waa imaada ma sha Allah waaye waxa u baahanayna waa ka helaa Soomaaliya yani horumar fiican gaartay waxa rajaynaa horumarka sii weyn inay sii gaarto oo meel badan in laga furo magacayga hadii aan ku bilaabo waa Abbas Ali Siyaad halkan waxa uu imaaday si maalinlaha uu ma jiray si aan uga dukaameysto halkan uu imaaday halkan waxaan u imaadanay wax walba u baahan tahay inaadan yani meel kale aad doonin hadii aaleed qudaarta hadii aaleed yani hilibka kalluunka ay shay u baahan tahay meeshan uu imaanaysa soo hal meel ay ku wada diyaartiin gaadisbay aan u doorto magacayga waa Deeqa Jimcaale waxaan imaadaa supermarket-ka Xayaat Supermarket waxaa ka helaysaa wax kasta oo u baahanahay ka helnaa qudaarta adeegga malayga everything oo u baahan tahay Xayaat Supermarket ugu yaala soo marka wax kasta oo uga baahnaan lahayn banaanka hal meel ka adeegana taas marka gurigaada aad waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin Salaaman Xaaji Axmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho